kadib coronavirus waxa ay dunida mar kale wajahaysaa fayraska monkeypox kaasi oo loo arko khatar kale oo halis ku ah caafimaadka aadanaha. waxaa markii ugu horreysay laga helay koox daanyar ah oo lagu waday cilmi baaris sanadkii 1958 laakiin kiiskii ugu horreeyay ee bini'aadamka waxaa la helay 1970kii waxaana lagu arkay dalka Jamhuuriyadda Congo oo xilligaasi loo yaqaanay Zaire. cudurkan waxa uu meelo kaga eg yahay cudurka ay Soomaalida u taqiinay busbuska laakiin waa uu ka halis badan yahay waxaana uu leeyahay madax xanuun iyo qandho daran. waxaa qofka jirkiisa ka soo baxa nabarro waaweyn waxa uuna aad u xanuujiyaa afka iyo xubnaha taranka. sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka cudurkan waxa uu qofka hayn karaa ilaa 4 isbuuc waana cudur iskiisa looga bogsan karo balse waxaa dhici kara xaalado daran oo sababi kara dhimasho. waxaa lagu kala qaadaa taabasho iyo qof ama xayawaan cudurka qaba. dalal badan ayaa ilaa ay haatan kiiskan lagu arkay. dalka Ingiriiska ayaa shaaciyay in faafitaanka cudurkan uu sii siyaadayo waxayna waaxda caafimaad ku xaqiijisay in la helay 20 xaaladood oo caabuqa furuqa daanyarada ah. sidoo kale wasaaradda caafimaadka Spain ayaa iyadana jimcihii sheegtay inay heshay 39 kiis oo cudurkan ah. 11 dal oo Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ah ayaa ku dhawaaqay inay heleen caabuqan waxaana wadamadaasi ka mid ah Talyaaniga, Portugal, Sweden, Faransiiska, Belgiumka, Canada iyo Mareykanka. cudurkan waxaa lagu hortagi karaa tallaalkii cudurkii furuqa lagu dabarjaray kuwa cusubna hadda ayaa la helay. sidoo kale waxaa dhawaan la helay dawooyin lagula tacaalo dadka uu soo rito cudurkan. hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa digniin u dirtay dadka ku nool galbeedka Afrika iyo meelo badan oo Afrika ah inay iska baaraan cudurkan sidoo kale dadka dunida inteeda kalena feejignaan ay galaan.